أحد العلماء معاصر النول أيوه حصون قلي قصة عجيبة وعلي مقالة لا حلب يا سوريا كتالا أيوه واحد شراه نين حدادة حداد وطمالة تدكوي من أيان روار هبلو إلهي إنه بري قفايق حنون سنية وار إلهي إذنكو بريا أورتو بريا مركا كعلى لسؤال الله كو بريا ومن عجيبة ومستجاب الدعوة مid kala imanaya waxba iga siiya wacaynka bil ilaahi bari haduu afka kala qaadaba adaaba arkay buur watumaale way abni buur wartalow ninkii waanu soo qastay buur waxaanu soo kaxaysay gaari waa nimid tan ninkii gurigaan ugu tagay waan wareystay teetay xulimka ku waramay maaye barito subax igu kale mehradeed walku wax ku garaaco teetay halkii baan u tagay meel gaaru ila baxay wuxuu waxaan doonayaa horta qadiyada waan qariyay buur laakiin maadaama nin sheekh tahay oo umada wacdiyo wuxuu sheega waxaan kuugu sheegaya in magacayga iyo magaca sawjada baqaris laakiin umadaadu sheegto talaabada aan gal waayo wax qiimo badan oo wax tar leh bali waran buur wuxuu yiri xaas baan guursaday intii sharciga ahayd baan ka eegay wajiga iyo labadii gacmood reerkiina waa ku qancay waa gacanta la isu dhiibay waa la heshiiyay waa la meheriyay waa la qalgalay mar alla markaan qalgalay ayuunba waxaan ogaaday xaaskaniba inay uur leedahay xaraan ah oo waliba 7 bilood ah markaasaan fajacay buu tala way igu ciirtay war maxaad yeeshaa subax caaw intaan waago baryin ma furtaa mee waaga ma la sugtaa ma xal kale ma u raadisaa waanigi baa fajacay buu waan rogrogay salaad baan galay iska ducaystay waxa igu soo dhacday war way inta soo ilaahay islaaxiyay qofkuna wuu noqon karaa qof mar dambaabe balcagta u dhig way teetana waan iska tukaday salaadii bay gaadhay iska tukaday iska shaqo tagay iska soo qada tagay kaanama ina waxba ma jirin teetana dhowr habeen markaan joognay habeenkii dambe wareyso afka u kala qaaday saytiri dambiga noocaas aan galay ilaahina waan uga toobad keenay ilmahana xaraan buu ku calool galay de waxaan sugayaa intuu dhalanayo toobadna suuxan ilaahay waan uga toobad keenay astur ilaahay ku asture way waan ku asturayaa mid iga ballan qaad ina dariiqa saxda ku dhaqmayso inta noloshaada ka hadhay oo aanad warwareeg yeelanayn kitaab jaamaca ku martibuu teetana waan sugay way gaadhay xilliga umulilayd teeta wuxuu yiri waxaan ugu yeeray gabadh magaalo kale aan ka doonay oo aan anigana garaneyn iyadana garaneyn baa ka umulisay teetana waa la hagaajiyay ilmihii waa laga shaqeeyay dhag waan soo qaaday buu yiri salaadii subax markii la galay ee lagu jiray ayaan soo qaaday hareeraha intaan iska eegay ayaan kadinka masaajidka dhinac uga yar dhigay salaadii iska galay waan ku yara raagay salaadii iyo digrigii markii dadkii ugu horeeyay degdegay soo baxeen shaqaaqdii ilmaha ay ku war heleen waa la isku kacayo ilma yaro la soo tuuray baa jira halkan waa anna sidii nin xoogay baan iskaga habsaamay digrigii aankaasoo kii ugu dambeeyay soo baxaan noqday waa bal warraba maxaa jira ilma yar baan halkan ka helayo de waa kan halkan la soo dhigo waa ilma kulli aan xalaal ku dhalan oo talo yaa war ma haysan cid alla cid la og yahay oo lagu og yahay ma jirto bal sheekh aniga ma idigu ducayn aniga haysan doono korin doone aniga ma idigu ducayn hay wallahi hadana kugu ducayna khayr allah ducaa gabigi meel dadkii joogay wala igu duceeyay teetay waliba intoon qaaday baa saldhiga iyo maxkamadda ka soo qornay ilmaha yaroon helay oo masaajidka aanu ka helay in aniga la igu duceeyo oo anigu aan koriyo oo aan hayo la igu duceeyo teetana sidii baa la yeelay hooyadiisii baan ugu soo celiyay dadku waxay u haystaan ilmihii aan banaanka ka helay xaqiiqaduna waa maxay islaantana dhashay sidii baan u ilaalinayay u badbadan oo ilaahay iga siiyay gabadha lu khayr ay noqotay ilaahay fadligiisa wuxuu ilaahay iga dhigay kelmadan alla baryaba inaan dhaqso u helo xataa aanay iga raagin muxuu ninkaas ku gaadhay asturaad iyo islaaxin iyo hagaajin haddii laakiin qofka oo xun oo xumaantii ku jira aad asturto taas iyadu taama laakiin qofka mar qaldamay amaba
qalad hore ku jiro dib uga soo laabtay waa in la islaaxiyo waana shay aad iyo aad u muhiima laakiin xumaanta la qarsado sax maaha nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata dayuus dayuuskuna waa ayo waa ka aladii yuqiru calaa ahli lkhabas ka ehelkiisa xumaanta u ogol inay raagaan inay meelaha maraan inay cid kale la hadlaan inay xijaab la'aan ku baxaan inay meelaha tagtagaan waa dayuusnimo wey dayuuskan isku caynaana waa dhaqan xumada halka ugu dambaysa weeye